warbixinaha laga soo gaaraya maamulada deegaanadaasi dadweynaha hay-adaha samafalka iyo wasaaradooda waxay tilmaamayaan in deegaanadaasi ku sugan yihiin xaalad aad u adag oo ay ka taagan tahay abaar ba'an, xaaluf, biyo la'aan iyo cunto yari. waxaa la xaqiijinayaa inay xoolihii badankoodii baxaan, dadkuna nafaqa darro iyo macaluul hayso, in badanna barakacday oo ay ku soo urureen tuulooyinka deegaanadaasi sida Garbadadar, Gargaara, Waraqa Dhegta, Calixayd, Aala Helay, Fadhixun, Ceelgaal, Fiqi Aadan iyo Gaarisa, Bulaxaar, Xagal, Berbera, Biyo Dhaadheer, Raarida Buur, Laastuure iyo tuulooyinka Huluul xagga xeebta ka xiga. dadka ay abaaruhu saamaysay waxaa lagu qiyaasay inay gaarayaan ilaa 20,000 oo qoys. dadkaasi waxay u baahan yihiin gurmad degdega oo isugu jira cunto, biyo, dawo iyo hoyba. haddii aan si degdega loogu gurmadna waxaa jirta cabsi in badan gaar ahaan dadka jilicsan sida carruurta iyo waayeelku ay u dhintaan gaajo iyo harraad. sidaa darteed waxaanu ugu baaqaynaa hay-adaha qaramada midoobay, hay-adaha samafalka ee caalamiga ah, hay-adaha wadaniga ah inay dhammaan shacabka reer Somaliland inay si degdega ugu gurmadaan dadka ku tabaalaysan deegaanada ay abaarta iyo biyo la'aantu saamaysay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.